السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مروين يا مدنيال كسر دوادا وركة تلفزيون كقرنكة جمهورية الصومالية. قضبضة وراركا. حلبانا كترسن برلمان كدولة كميل جار كصوماليا أو شركو يشي مقالة مقدشوا يا واحد كم تشيران كتل معمين. قام دي كسب بحي شركي ولا ترشق لغوت المعمي إدوان مقالة نيروبي اللي جسوا جبجبيي. qaar ka mid ah xildhibaanaduna waxayba ku tilmaameen shirkaasi inuu ahaa mid loogu talagalay kala qaybinta shacbiga Soomaaliyeed. wasaaradda warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta ee wadanka ayaa waxa ay shahaadooyin sharaf guddoonsiisay iyo bilado qaar ka tirsan shaqaalihii ugu hawlkarsanaa bishii Maarch ee la soo dhaafay telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo idaacadda Radio Muqdisho iyana ku hadasha codka jamhuuriyadda. isbeddelka dhanka ammaanka ah iyo socodka baayac mushtarka oo wanaagsan ayaa laga dareemayaa magaalada caasimadda ee Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay kadib markii ay ciidamada dawladdu horumar ka sameeyeen meelaha ay dadku baayac mushtar ku sameeysan jireen isla markaasna wadooyin hor leh oo dhanka baayac mushtarka ku saabsan la furay. qodobada dhanka caalamka ee warka telefishinka qarankana waxa ugu waaweyn qarax ka dhacay magaalada caasimadda wadanka Ciraaq ee Baghdad oo ay dad ku dhinteen iyo 14 qof oo ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada wadanka Syria kadib markii dad aad u tiro badan ay isugu soo baxeen xabaasha qof ka dhintay dibad baxayaasha. intaasi marwooyin iyo mudanayaal waa qodobadii ugu waaweynaa warka telefishinka qaranka. haatan idinku mahadsan waxa idinku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran. xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda oo shir ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka ayaa waxa ay si weyn u dhaleeceeyeen qodobadii ka soo baxay shirkii lagu tilmaamay wada tashiga ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. kulankan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay sacad uga soo horjeesteen qodobadii ka soo baxay shirkii Kenya uu ku qabanqaabiyay ergeyga qaramada midoobay Augustine Mahiga kaas oo ka qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan. kulankan ay yeesheen mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa kadib markii uu soo idlaaday waxa saxaafadda la hadlay guddi xildhibaano oo iska soo dhaxuleen kaas oo ugu horeysay xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiriye, xildhibaan Maxamed Axmed Weekiyo, xildhibaan Cabduladiif Muuse Nuur Sanyare, محمد دغني علمي إسماعيل أحمد نور. قبل هانتود waxa ay ku hadlayeen codka mudanayaashii baarlamaanka kulanka yeeshay. ugu horeyn saxaafadda waxa la hadashay xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiriye waxa ayna si cad uga soo horjeesatay kulankii ka dhacay Nairobi qodobadii ka soo baxay waxa ayna sheegtay inay ahaayeen qodobo aan suurtagal ahayn isla markaana wax ka jilaysan jirin. naguma hogaamin karo fikirkiisa iyo waxa isaga oo qalbigiisu jecel yahay mana ogolaanayno mana naloo keenayo sida saxaafadda aad idinku hormuud u tihiin aad ka maqlayseenna waxaan kula soo celinaynaa wada tashi go'aanka baarlamaanka gaaray annaga waxaan ku ogeyn 6 bilood iyo isagoo ku dhagan 6 bilood in aan laga hadli karin 6 bari kadib inuu ka hadlo oo uu yiraahdo waa soo qaaday habeenkii xalay waxa uu tagay waayo in aan qaadanno ama aan ku qanacno ama nala ku gudoomin noocaas oo kala ah. sidoo kale waxa saxaafadda la hadlay xildhibaan Maxamed Daqane Cilmi Aar oo isna qaadacay kulankii ka dhacay Nairobi qodobadii ka soo baxay waxa uu sheegay in Augustine Mahiga dalka uusan ka ahayn madaxweyne isla markaana dalka uu madaxweyne ka yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed kaas uu sheegay inay ku shaqeyn doonaan awaamirtii ka soo baxday madaxweynaha. waad ogtiin 3 sano ayuu baarlamaanka ku darsaday waad ogtiin 3 sano inuu ku darsaday hindisa ma ahayn hindisa meel kale ka yimid wuxuu ka yimid asaga haddii lagu darayna madaxweynihii Soomaaliyeed xaqii uu lahaa inuu ku soo celiyo waa ka qaban waaye xaqna uma lihiduu yiri madaxweyne goboleedyo 2 ah iyo Mahigana waa uu ka qabtay inuu baarlamaan hor keenana waa rabaa bal ogaada ummadii Soomaaliyeed reaction ka yimid waad ogtihiin. waxaan rabaa in hortiina ka cadeeyo Mahiga ma aha madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Mada ah ra'iisul wasaare ma aha wakiilka UNDP Soomaaliya ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ah. Maxamed Xuseen Gentleman TV-ga qaranka Soomaaliyeed Muqdisho. xisbiga nabadda iyo horumarka oo magaalada Muqdisho maanta shir weyn ku yeeshay ayaa waxa ay ku dhawaaqeen gudoonkii xisbigaasi oo holaha xisbiga halkaasi ka sii ambaqaadi doona waxaana xisbigaasi maalintii shalay ahayd laga dhawaaqay magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka. wariyahayaga Maxamed Cabdiqaadir Daahir ayaa faahfaahinta qodobkan eegaya.
kadib kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen xubnaha iyo ergooyinka kala duwan ee xisbiga nabadda iyo horumarinka oo maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada tan Muqdisho ayaa waxaa looga dooday muhiimadda qaab-dhismeedka iyo weliba sidii loo soo dooran lahaa gudoomiyaha koowaad ee xisbiga nabadda iyo horumarka. Xubnaha xisbiga ayaa si wada jir ah isugu raacay in gudoomiyaha xisbiga loo magacaabo injineer Xasan Sheekh Maxamuud si uu wax badan uga bedelo howlaha uu qabanayo xisbiga muddada 3 sano ee soo socota, sida ay saxaafadda u xaqiijisay Sagaal Cabdirasaaq Isaaq oo ka mid ah xubnaha golaha dhexe ee xisbiga nabadda iyo horumarka. 18 Abriil 2001 la soo gabagabeeyay shirweynihii koowaad ee xisbiga nabadda iyo horumarka. shirkaas oo muddo 2 maalmood ka socday hoteelka Saxafi International ee magaalada Muqdisho. Maalintii labaad shirku wuxuu guda galay qaab dhismeedka xisbiga intii ugu muhiimsanayd iyo doorashadii. Guddi doorasho oo shirweynuhu magacaabay ayaa soo qaabiyay doorashada gudoomiyaha iyo golaha dhexe ee xisbiga nabadda iyo horumarka, iyadoo ergaduna ay ansixiyeen soo jeedinta guddiga doorashooyinka. Kadib wadatashi ay sameeyeen guddiga doorashada ayaa waxay soo bandhigeen in gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo horumarka uu noqdo Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale gudoomiyaha la magacaabay ee xisbiga nabadda iyo horumarka injineer Xasan Sheekh Maxamuud oo isna saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in uu ka shaqeyn doono xilliyada ugu horeysa sidii uu soo dhameystiri lahaa qaab dhismeedka xisbiga. dadkii aan u baahnayn oo dhan golaha dhexe lama soo wada magacaabin, waxaanan u dhaafnay tartiib in loo soo magacaabo ayadoo hadba horumarka xisbiga uu gaarayo ee mujtamaca bulshada dhexdeeda lagu salaynayo soo magacaabistaas iyo dad ku habboon qiyaadada ama hoggaanka cusub ee xisbigan cusub ee raadinaya Soomaaliyada cusub. marka sidaas ayaa isaguna uu ku imaan doonaa inta dhiman muddooyinkan ugu soo horeysa howlaha ugu waaweyn oo xisbigu ku mashquuli doono waxaa inuu dhammaystiro dhismaha qaab dhismeedka xisbiga, ka bacdina in uu mujtamaca ama bulshada Soomaaliyeed ee gobolada iyo qaybaha kala duwan ee Soomaaliya degan in uu gaarsiiyo fariintiisa si uu uga helo ictiraaf iyo taageero. annagu ictiraafka iyo taageerada muhiimad nooma aha inaan ka raadino dibadda, waxaa muhiimadda koowaad noo tahay ictiraafka iyo taageerada inaan ka raadino dadka Soomaaliyeed dhexdeeda. taas ayaana noogu filan aqoonsi iyo maxaan ku yiraahdaa sharciyaduna waxaan aaminsanahay Soomaalida dhexdeeda inay naga jirto. doorashada ay xisbiga nabadda iyo horumarka u doortaan gudoomiyaha koowaad ee xisbigaasi injineer Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo beegmaysa xilli maalintii shalay magaalada Muqdisho laga dhawaaqay xisbigaasi. Maxamed Abduqaadir Daahir, TV-ga qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. isbeddelada dhanka ammaanka ah iyo socodka baayac mushtarka ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka, iyadoo golaha xukuumadda ee dalkuna uu ballan qaaday inuu horumarinayo xaafadaha magaalada Muqdisho ammaankooda si ay dadka Soomaaliyeed oo caan ku ah baayac mushtarka ay u sii horumariyaan ganacsigooda. wariyahayaga Mustafa Maxamed Axmed ayaa faahfaahinta qodobkan noo haya. isbeddello ballaaran oo dhinacyada amniga, horumarka ganacsiga iyo bilicda Muqdisho lagu yaqiinay xilliyadii barisamaadka ayaa laga dareemayay maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho, gaar ahaan goobaha gacanta ku hayso dawladda ku-meelgaarka ee Soomaaliya, kadib markii xukuumadda ku-meelgaarka ee Soomaaliya ay dhabarka u xiratay sidii bulshada Soomaaliyeed ee asaagooda ka haray dhibaatada iyo dagaaladana caadaystay loogu ifin lahaa nolol dhaanta tii ay ku noolaayeen. markaad dhex tagto suuqyada kala duwan ee magaalada iyo wadooyinka faras magaalaha ku yaala ayaa indhahagu waxay qabanayaan ganacsiga oo si xawli ah ku socda. burburka wadooyinka oo markii dib u habayn lagu sameeyay kadib ay gaadiidku si hufan u isticmaalayaan, nolosha dadkuna ay xilligan u muuqato mid si tartiib u soo hagaagayso, dadkuna ay ku mashquulsan yihiin horumarka iyagoo weliba maanka ku haya doorka xukuumadda ee dhinaca sugidda amniga oo bulshada loo ballan qaaday ififaalaheedana uu hadda muuqdo. halkan waa suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir, waxaana marka aad dhex tagto durba aad dareemaysaa nolosha ay dadku hiigsanayaan ee horumarka ku qotanta, iyadoo goobaha ganacsiguna ay sii kordhayaan kadib markii saameyn adag ay ku yeesheen ganacsatada dagaalada ka socda dalka. ganacsataduna ay suuqyada kale ee Muqdisho sida suuqa Bakaaraha oo xilli ahaa suuqa ugu dhaqdhaqaaqa badan haddana ah kan ugu dhaqdhaqaaqa liita ay isaga soo guureen, halkan ay goobo ganacsi ka samaysteen. gudoomiyaha degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Cabdullaahi Ibraahim Sahal Gardhuub ayaanu wax ka weydiinay horumarka ka socda degmada Xamarweyne iyo doorka maamulka degmada Xamarweyne uu ku leeyahay arrinkaasi. Xamarweyne wuxuu rabaa ilaalin badan, wuxuu rabaa goobo taariikhaha ku yaala sidii xaruntii dawladda oo markii dambe gobolka Banaadir yeeshay. waxaa ku yaala muusimiyadii madxafkii
muxuu ahaay qaranka Soomaaliyeed oo taariikhda la dhigi jiray waxa ku yaala wasaaradihii intii ugu badneed waxa ku yaala muxuu ahaa kawaanka kaliya ee malayga Soomaaliya kawaanka malayga loo yaqaan ku yaala waxay leedahay muxuu ahaa taariikheed aad u tiro badan oo ilaalin raba oo waxa muxuu ahaay ay daris la tahay degmooyinkii kale qadiimiga ahaa waxay rabtaa marka magaaladaasi aragti aad uga duwan midda hadda jirta aragti ka duwan ayay rabtaa gobolku. sidoo kale ganacsatada suuqa degmada Xamarweyne oo aan mikrofoonka la dhex maray ayaa iyaguna ka hadlaya dareenkooda iyo ganacsiga suuqa Xamarweyne sida uu xilligan u sii ballaaranayo. qaabka ganacsiga u socdo iyo dadka sida ay kala dareensanayaan waatahay marka xilliyadii ugu dambeeyay burburka dalka uu ku jiray dhibaatadu ay jirtay saameyn adag dhinaca nolosha iyo horumarkii ganacsigaba way ku yeelatay dagaaladii socday hadda waxaad moodaa in suuqa uu dib u soo qabsanayo oo noloshii caadiga ahaa dadka ay la qabsanayaan marka waa alla mahadiis dhibaatadaas magaalada waa saameysay laakiin alxamdulillah hadda suuqan wuxuu soo maray taariikh badan hadda suuqan nasiibkiisa hadda aad u cimiray ganacsigiisa wax badan oo kusoo kordhay dhaqaaqdiisa goobo xilliyadii hore lagu yaqiinay howlo kale oo majaajilo iyo daawasho aflaana ayaa hadda waxaa ka bilowday dhismooyin cusub si goobo ganacsi looga dhigo. waxaa ka mid ah goobahaasi Shaneemo Zuber oo aan filayo in dad badan ay xusuusan doonaan. wasaaradda warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta ee dalka ayaa waxa ay bilado iyo shahaadooyin sharaf guddoonsiisay qaar ka tirsan howlwadeennada idaacadda Radio Muqdisho oo codka jamhuuriyadda ku hadasha iyo telefishinka qaranka oo dhawaan ay wasaaraddu hirgelisay. dadkaas ayaa loo aqoonsaday inay ka mid ahaayeen howlwadannadii ugu shaqada wanaagsanaa bishii Maarch aynu ka soo gudubnay. munaasabada lagu guddoonsiinayay biladaha iyo abaalmarimaha waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan golayaasha jamhuuriyadda. wariyahayga Sacdiye Maxamed Xasan ayaa faahfaahinta qodobkan noo haysa. munaasabadani oo ah mid bilaa isla markaasna ay wasaaradda warfaafinta boostada isgaarsiinta bil waliba abaalmarino ku guddoonsiiso shaqaalihii ugu dadaalka badnaa bishaasi ama muujiyo howlkarnimo dheeraad ah oo ka tirsan waaxda warbaahinta ayaa waxaa bishani abaalmarin la guddoonsiiyey ilaa iyo 18 shaqaale kuwaas oo dhammaantood ka wada tirsan waaxda warbaahinta si gaar ah uga kala howlgala Radio Muqdisho oo codka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed Somali National TV. xafladda abaalmarinta lagu guddoonsiiyey shaqaalaha ka tirsan waaxda warbaahinta ayaa waxay barqanimadii maanta ayd ka dhacday howlka shirarka ee wasaaradda warfaafinta boostada isgaarsiinta waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo boostada isgaarsiinta sida wasiir ku-xigeenka wasiir dowlaha iyo wasiirka warfaafinta boostada isgaarsiinta. ugu horeyntii agaasimayaasha Radio Muqdisho iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed Cabdiraxiin Ciise Cadow iyo Cabdiraxmaan Xasan Jimcaale ayaa munaasabadaas si wadajir ah uga akhriyay magacyada howlwadeennada mutaystay abaalmarinta bishani ee dadaalka dheeraadka ah muujiyay. waxaa ugu horeeyay Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala qofka labaad waxa waay Sacdiye Maxamed Xasan Maxamed Cabdiqaadir Daahir ayaa ku xiga MCD Cabdullaahi Xuseen Qoryooley Sheekh Maxamed Amiin waa mataqaanaa madaxa oo editorka TV-ga waay waxaa ku xigta Deeqa Maxamed Axmed Cabdirashiid Nuur Xuseen ugu dambeeya annaga oo loo yaqaan Nuune. Radio Muqdisho laga abaalmariyo waxaa ugu horeeyo Cabdimahad Xuseen Abtidoon waxaa labeeyo Maxamed Macalin Xasan Waydka nin la yiraahdo. nambarka saddexaad waxaa noogu jiro Cabdi Salaan Cali Mantaan Daacad waxaa noo afareeya Abshir Xaasha Cali. number 5 waxaa ah Fartuun Axmed Xasan. number 6 waxaa waaye Cabdi Weli Maxamuud Salaad Xeerdaac. waxaa ku xiga 7 Ciise Cabdi Sibriye. waxaa ku xiga oo 8 ah Maxamed Ibraahim Cabdulle Biibaaye. waxaa noogu sii xigo Maxamed Ibraahim Raage. waxaa noogu sii xiga gabagabadii joognaa Muuse Ismaan Abtow.
waxaa ugu dambeeya aadan muxudiin isaaq. wasiirka wasaaradda warfaafinta boostada isgaarsiinta mudane cabdikariin xasan jaamac munaasabadaasi ka hadlay isla markaana shaqaalaha la abaalmariyay guddoonsiiyey waxa ay muteysteen ayaa ka hadlay qaabka dardar kale oo ay u socdaan howlaha waaxda warbaahinta gaar ahaan ammaanta ay shacabku u hayaan raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed aysan ahayn mid qarsoon waxa uuna ku guubaabiyey inay shaqaaluhu ay sii wadaan dadaalkooda dheeraadka ah. runtii wax sira maaha meel kasta warka yaalla hadda waxaa waaye raadi muqdisho sida uu u horumaray iyo sida macluumaadka website-kiisa looga qaato iyo sida dadka jooga inta uu gaadho ay u dhageystaan iyo telefishinka nagu soo kordhay iyo sida dadku ay ugu faraxsan yihiin ula dhacsan yihiin waxaan rabaa inaan caadaysano dhaqanka noocaasa oo ah qofka hadduu maalintii 8 saac shaqaynayo haddii 5 shaqo oo kala duwan uu qaban karo oo loo diro inuu qabto horumarka aan doonay inaan sameeyno waa mid badan. bil walba xilligan oo kale waxay wasaaradda warfaafinta boostada isgaarsiinta guddoonsiisaa shaqaalaha abaalmarino niyadda loogu dhisayo kuwaasoo la guddoonsiiyo shaqaalihii ugu shaqada badnaa bilihii la soo dhaafay. Sacdi Maxamed Xasan, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, xarunta wasaaradda warfaafinta Muqdisho. wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo dhalinyarada ee Puntland oo ka soo laabtay safar uu dalka dibadiisa ku joogay ayaa ka warbixiyay waxyaabihii uga soo qabsamay safaradii uu dalka dibadiisa ku joogay. wariyahayaga magaalada Boosaaso Jaamac Axmed Cali Joofan ayaa faahfaahinta qodobkan Boosaaso ka soo diray. wasiirka isboortiga dhalinyarada shaqada iyo shaqaalaha ee Puntland Cabdiweli Xirsi Cabdulle Indhaguran oo safar kala duwan ku soo maray dalal ay ka mid yihiin Ethiopia, Djibouti iyo Malaysia ayaa mar uu maanta dib ugu soo laabtay magaalada Boosaaso waxa uu ka warbixiyay dalalka safarada ku soo maray sidoo kale kulamada uu la soo qaatay mas'uuliyiinta uu dalalkaasi kula soo kulmay. Cabdiweli Indhaguran waxa uu sheegay in dalka Malaysia oo ka mid ahaa dalalka uu safarada ku soo maray uu kala soo hadlay sidii shaqo abuuris loogu sameyn lahaa dhalinyarada Puntland iyo sidoo kale arrimo kale oo ku aadan iskaashiga labada dhinac ee Puntland iyo Malaysia. socdaalkaygu wuxuu ahaa wuxuu ka bilaabmay Malaysia, Ethiopia iyo Djibouti oo ahaa. Malaysia waxay ahayd inaan dawladda Malaysia oo mar soo martay sida ay hadda Puntland tahay oo kale inaan kala soo tashano dhalinyarada sida xirfad loogu abuuro meelo badan oo goobaha oo dhalinyarada training loogu sameeyo ayaan la soo kulmay. waxaan ka soo qaatay dokumentiyadii iyo casharadii waxaan ku soo heshiinay wax allaala waxay naga caawin karaan trainingkaas dhalinyarada loo tababarayo xirfado inay nasiyaan ama manhajkii la dhigan lahaa noqoto ama macallimiintii bixin lahaa noqoto. dhinaca kale maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso Cabdulqaadir Maxamed Ismaaciil Jeeni Gaab oo ka mid ah mas'uuliyiintii wasiirka ku soo dhaweeyay magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyay xaaladaha garoonka ee dhanka horumarka waxaana uu sheegay in garoonka Boosaaso hadda ka socdo horumar ballaaran oo iyadoo dhawaana loo sameyn doono dhismaha runwayga isagoo ka codsaday qaybaha kala duwan ee bulshada inay gacan ka siiyaan sidii garoonka diyaaradaha loogu sameyn lahaa dhismaha runwayga oo ah mid ka mid ah dhismayaasha ugu muhiimsan ee garoomada caalamka. garoonka Boosaaso runtii waqtigeeda waxaa socotay shaqo dhismayaasha terminalka iyo arridhigii runwayga. marka garoonku wuxuu u baahan yahay in gacan weyn laga geysto shacbi iyo dowladda sidii loo dhisi lahaa runwayga. runwaygaasa ugu muhiimsan Puntlandna ma aha runway. anagu waxaan ku mashquulnay waxaan wax ka qaban karnay sida bilicda garoonka, nadaafadda, muxuu ahaa dhammaystirka dhismayaasha terminaalka oo weli socda baan aad ugu mashquulsanahay. sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo shacabkaba in gacanta hadda lagu wada maxoojiyo sidaa laga sii badiyo iyadoo ay gacan jirto hadda socota. garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso oo qaybta cusub la aasaasay sanadkii 2004 ayaa xilliga kan waxaa ka dhiman dhismayaal dhowr ah oo ka mid yahay kan runwayga walow maamulka garoonka uu ballan qaaday inay dhowaan dhismayaashaasi hirgelin doonaan iyagoo la kaashan doona qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay'adaha caalamiga ah. Jaamac Axmed Cali Joofane, telefishinka qaranka Boosaaso. dhinaca kalena xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka oo ka mid yahay xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxay ku tilmaameen shirkii Nairobi dhawaan lagu soo gabagabeeyay mid la doonayo in lagu kala geeyo shacbiga Soomaaliyeed
ee muddooyinkii 20 sano ee la soo dhaafay dhibaatada ku sugnaa. xildhibaan cabdi xaashi cabdullaahi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si kulul uga hadlay shirkii wada tashiga lagu sheegay ee lagu soo gabagabeeyay dalka Kenya kaasi oo ku tilmaamay inuu ahaa shir la doonayay in lagu majaxaabiyo dadaalada ay xukuumadda ugu jirto nabad ku soo dabaalida dalka. xildhibaanka ayaa shirkiisa jaraa'id waxa kale uu ku sheegay in shirkaasi uu garwadeenka ka ahaa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Augustin Mahiga oo ujeedo gaar ah ka lahaa shirkaasi uu ku tilmaamay inay ahayd in uu iska horkeeno hay'adaha dawladda isaga hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay xilligan u baahan tahay shir wada tashi yeeshe aysan ahayn mid ku saabsan qaabku Mahiga wax u wado. xildhibaan cabdi xaashi cabdullaahi ayaa xusay in shirka ay shacbiga Soomaaliyeed u baahan yihiin uu yahay mid lagu qabanayo gudaha dalka oo ay ka qayb galaan dhammaan Soomaalida isla markaana ay lahaanshihiisa ay Soomaaliya leedahay caalamkana looga baahan yahay in uu taageero buuxda siiyo. shirka la leeyahay waxa lagu qabtay 12kii bishan magaalada Nairobi uu yahay shir sidaan anigu arkayo dawladda Soomaaliya TFGD lagu burburinayo waa mid loogu talagalay in lagu burburiyo dawladda federaalka sida ka muuqata warqadaha martiqaadka ee loo qaybiyay dawladda federaalka oo laga dhigay 3 jabhadood oo iska soo horjeeda. Mahiga ujeedada uu ka lahaa shirka waxay ahayd inuu iska horkeeno TFGda sida ka muuqata warqadaha. Soomaaliya way u baahan tahay shir wada tashi iyo mid dib u heshiineed laakiin ma aha qaabka uu Mahiga wax u wado. Soomaaliya waxay u baahan tahay shir ballaaran oo ay ka soo qayb galaan qaybaha Soomaaliyeed oo dhami mucaarad ama muxaafad laguna qabto dalka gudihiisa oo lahaanshihiisa Soomaaliya leedahay caalamkuna taageero buuxda u siiyo. dhinaca kale xildhibaanka ayaa ka dhawaajiyay in shirkii lagu soo gabagabeeyay Kenya aanu ahayn mid looga baahnaa in ay ka qayb galaan xubno ka tirsan baarlamaanka isla markaana uusan ahayn mid baarlamaani ah hase yeeshee uu ahaa shir siyaasadeed loona baahnaa in xukuumaddu ay ka qayb gasho. waxa uuna soo dhaweeyay go'aanka ay xukuumaddu ku qaadacday shirkii 13kii bishan Kenya lagu soo gabagabeeyay. baarlamaanku shirka la sheegay shaqo kuma laha sababtoo ah waa shir siyaasadeed oo ay xukuumaddu ka qayb gasho haddii uu jiro khilaaf ama isfaham la'aan ka dhex jira xukuumadda iyo maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada. baarlamaanku shirar dibadeed oo siyaasadeed shaqo kuma laha oo waxaa dibadda u aada shirarka baarlamaanada adduunka shir martiqaad baarlamaan uu ka helay waxaa kale uu dibad u aadi karaa aqoon kororsi. shirarka siyaasadeed dhaqaale iyo bulsho waxaa leh xukuumadda wixii heshiisa ay xukuumaddu ka soo gashana arrimahaas waxaa la horkeenaa baarlamaanka si uu uga doodo go'aanna uga gaadho. baarlamaanku waa sharci dejiyaha dalka ee ma aha fuliye iyo garsoore midna ma aha. arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli mudanayaasha baarlamaanku ay intooda badan isku raaceen in xubnaha matalaya magaca baarlamaanka Soomaaliya ay ka qayb gali karaan oo kaliya shirka baarlamaanada adduunka ha yeeshee ay qalad tahay in laga qayb galo shir siyaasadeed. Deeqa Maxamed Axmed, telefishinka qaranka, Muqdisho. hay-ad wadani ah oo ka howlgasha magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka ayaa howlo nadaafadeed waxay ka bilowday dhismaha wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda iyadoo sidoo kaleetana hay-adaasi wada bilowga in lagu dhiso magaalada Muqdisho kawaan hilibka loogu talagalay. wariyahayaga Ismaaciil Mukhtaar Cumar Oranjo ayaa faahfaahinta qodobkan eegaya. ololahan ballaaran ee shirkadda wadani ka wado magaalada Muqdisho ayaa qayb ka ah barnaamij ballaaran oo shirkadani ay ugu tala gashay inay kula dagaalanto dhirta aan macnaha ugu jirin bulshada Soomaaliyeed ee loo yaqaan geed yahuudka taas oo qarisay in badan oo ka mid ah bilicda magaalada Muqdisho wixii ka dambeeyay markii dagaalada sokeeye ay ka qarxeen dalka. shirkaddan ayaa haatan ku howlan
sidii geedkaasi looga baabi'in lahaa goobaha muhiimka ee ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaana xarumihii hore ee dowladda ee ku burburay dagaalada. halkani waa dhismaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxaa horay u qabsaday geedka caligaroobka Soomaalidu u taqaano balse shirkadda wadani oo kaashanaysa maamulka gobolka Banaadir ayaa jartay inta badan dhirtii qabsatay dhismaha wasaaradda iyadoo jarista geedkan loo adeegsanayo qalab casri ah oo loogu talagalay jarista dhirta sida uu TV-ga qaranka Soomaaliya ugu sharaxayo agaasimaha guud ee shirkadda wadani Axmed Maxamed Nuur Axmed Jawhar. waxaan ka soo bilaabnay waa beri xamar jajab dhinaca Madiino oo aan ka sameynay sila Baydhabo. haddana waxaan ku jirnaa tiim kale waxaan noo jira meesha la yiraahdo Taleex tiim kale oo ku leenahay ka shaqeeya anagu waxaan la dagaalanaa geed yahuudka waxa uu la mid yahay shabaabka soo magaalada way usna ku hayaa. shirkaddan waa shirkad wadani gudoomiyaha gobolka ayaa hadda heshiis wada galnay inaan iska waxba kula shaqeyno. shirkaddu waxay soo qabatay shaqooyin badan oo hadda korba idinku aragteen ay ka mid ahaayeen dhagax tuur meesha la yiraahdo waxa dadilka dasoon intaas oo dhan waa soo qabanay. hadda waan arkaysa meesha aan joogno waxa wasaaradda caafimaadka howda iyo heedo arkaysa dhabarkayga dambe arkaysa howda soo yaalo si aan u cadeyno arkaysa shirkaddan waxay ku tabarucdaa inay wadanimo ku shaqeyso iska ku shaqeyso si ay wadanku marka wax ugu hesho. shirkaddan oo ay ku midaysan yihiin aqoon-yahano Soomaaliyeed oo iskood isku soo xilqaamay ayaa muddo 7 bil ah waday ololaha ay kaga qayb qaadanayaan soo celinta bilicda magaalada Muqdisho waxaana horay dhir fara badan oo aan wax macnaha ugu jirin bulshada Soomaaliyeed uga jareen goobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin taalada daljirka Daahsoon SYL iyo taalada dhagax tuur iyadoo dhinaca kalena shirkaddani haatan degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ay ka hirgelinayso dhismaha